wanaagsan meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij kooban oo ku eegayna warar la xiriira wadanka Itoobiya qodobada soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada waqooyiga wadanka Itoobiya ka socda ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxa kale oo aan soo qaadan doonaa duqeymo aan kala joogsi lahayn oo saacadihii ugu dambeeyay ka socday deegaanada Tigray waxyaalaha kale oo aan soo qaadan doona waxaa ka mid noqon doona kooxda TPLF sida ay ku baahisay warbaahinteeda ay Dimitri Wayane waxa ay sheegeen ciidamo kala duwan soo bandhigeen kuwaasi oo ka kala tirsan militariga iyo faano oo ay sheegeen inay ku qabteen dagaalka halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa iyadana hadii oo guul la saamo waxa kale oo aan soo qaadan doonaa caqabadaha wali wada hadaladii in ay dib u bilowdaan xilli xaaladu aad moodo inay sii xoogeysanayso baaqyada caalamkuna ay soo kordhayaan kuwaasi oo lagu doonayo dagaalka in lagu joojiyo waxaan ku bilaabaynaa wararka la xiriira dhinaca dagaalada waqooyiga wadanka Itoobiya toddobaadkii saddexaad dagaal xawli ah ayaa ka socda ilaa iyo hadda dhinacyadu marka laga reebo guulaha ay kala sheeganayaan cid madax banaan oo si rasmi ah u xaqiijin karta ma jirto waxyaabaha halkaasi ka dhacay toddobaadyadii la soo dhaafay marka laga reebo muuqaalo iyo waxyaabo kooban oo warbaahinta maxalliga ay soo gudbinayaan sida si la mid ah waxaa jira sawirro ay satellite-ku hawada u ka qaaday kuwaasi oo iyagana muujinaya burbur xoog badan oo deegaanada la isaga horyimid ka jira dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Itoobiya maalmihii la soo dhaafay ma uusan kala kac lahayn dhinacyaduna jilbaha ay soo aasteen wararka qaarkood ayaa sheegaya in koonfurta gobolka Wollo oo kaleeto maalmihii la soo dhaafay dagaaladii ka socday ay ku xooganaayeen ama ay kooxda TPLF ku xoog badnayd halkaasna magaalooyinka qaar ciidamada dawladda federaalka ee wadanka Itoobiya iyo kuwa ay kaashanayaanba ay dib uga soo baxeen deegaano dhowr ilaa iyo hadda dawladda federaalka ee wadanka Itoobiya kama aysan hadlin arintaas iyada mana aysan xaqiijinin laakiin waxa jira warar kala duwan oo sheegaya arintaasi amaba warbaahinta deegaanada Tigray ay tabinayso iyo qaar kamid ah tan wadanka Itoobiya oo sheegaya inay magaalooyinka qaarkood dib uga soo baxeen ciidamada militariga ee wadanka Itoobiya oo dib u garasho ay sameeyeen ilaa iyo hadda lama oga sababaha keenay dib u garashadaasi iyada ah iyo waxyaabaha ay uga soo baxeen halkaasi laakiin arintaas kooxda TPLF iyagu waxay ku sheegayaan culays xoog badan oo ay saareen ciidamada militariga wadanka Itoobiya in ay keentay in dib ay u soo gurta guud ahaan marka la fiiriyo dagaalka sidaasi la mid ah waqooyiga wadanka Itoobiya wali waxa socda dagaalku dhinaca waqooyi amaan idhaahdee galbeedka ayaad moodaa inuu hadda u xoog batay dhinacaas oo TPLF iska jirkeeda u weyn uu Eritrea ay dagaalka qayb weyn ka tahay marka la fiiriyo dhinaca istiraatiijiyadda iyo isku dayada hujuunada ama weerarada halkaasi ka imanaya magaalooyinka la xaqiijiyay in ay gudaha u galeen kooxda TPLF waxa kamid ah magaalo la yiraahdo Adiarkai oo maalmihii la soo dhaafay ay ciidamada dawladda federaalka markii uu dagaalku bilowday kooxda TPLF ayaa qabsatay kadib ciidamada dawladda ayaa dib ugu ruqaansaday amaan idhaahdee dib ugu noqday kadibna waa ay ka saareen magaaladaasi iyaga ayaana muddo toddobaad iyo bariyo waliba halkaas iyada ku sugnaa haddana dib ay uga soo baxeen sidaas la mid ah magaalooyinka ay dagaalka xoog badan xilligan ku hayaan waxa kamid ah debate ee koonfurta Wollo ama idhaahdee waqooyiga dhinaca Wollo dagaalo xoog badan oo culus ayaa ka jira sidoo kale tana gobolka Gondar ayaa iyadana sidaas la mid ah aad moodaa in uu culays badan jiro laakiin hawshu si guud hadda Wolkate oo dhinaca koonfurta deegaanada Tigray ah ayaad moodaa inay ku soo arurtay oo xooga dagaalku uu xilligan u wareegay xaaladuna ay tahay mid marba marka ka dambaysa si cuslaanaysa ciidamada militariga wadanka Itoobiya waxay sameynayaan duqeymo xoog badan oo magaalada caasimadda oo ah
deegaanada Tigreega ee Makale iyo magaalooyinka kale ee waaweynba wali ku sii socda. Subaxnimadii hore ee saaka shalayto ilaa iyo habeen horeeto duqeymo aad u xoog badan ayaa ka jiray magaalada Makale caasimadda. waxyaabaha ay soo bandhigtay Dimitri Wayana waxaa kamid ah baabuur sii galeysay magaalada Makale oo halkaas diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeymo ugu geysteen kuwaasi oo raashin siday halkaasi oo dhammaan alaabtii saareed khasaare aad u xoog badan oo badeecado kala duwan isugu jiray uu soo gaar. waxay leeyihiin iyagu dhinaca saadka iyo waliba in dadka noloshooda wax laga bedelo ayaa dagaal xitaa lagala jira. taas sababteed ayaana keenay in diyaaraduhu ay duqeeyaan baabuurta raashinka magaalada u siday ee dadka shacabka iyo ganacsatada ay lahaayeen. laakiin ilaa iyo hadda waxa rasmiga waday marka la fiiriyo ama laga reebo badeecadaha guud ee ka muuqday burburka ay soo bandhigeen muuqaalada Dimitri Wayana in aysan jirin xaqiiqada ku saleysan baabuurkaasi waxyaabaha waday iyo sababta keentay in loo beegsaday intaba. wali cabashooyin xoog badan ayay ka muujinayaan dhinaca duqeymaha waxayna sheegayaan inaysan ahayn wax la dhowran karo hawshu xilliga. sidoo kale warbaahinta Dimitri Wayana waxa ay baahisay ciidamo tiro badan oo la xiriira ama kamid ah maleeshiyaadka Faano kuwaasi oo iyaga laftooda hadlaya sheegayana inay Faano ahayeen dagaalka lagu soo khalday eedeynaya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo Asiyaas Afwerki waxyaabaha kulli ee TPLF ay u sheegeen ay inta badan sheegayaan oo halkaasi warbaahinta laga soo duubay. waxa kale oo kamid aha qaar kamid ah saraakiisha ciidamada militariga iyagana waraysiyo laga qaaday oo ka sheekeynaya sida ay dagaalka ku soo galeen xaaladdu sida ay tahay ciidamada militariga dagaalka soo galay tiradoodu inta ay tahay waxyaabaha soo gaaray sidoo kale waxa loo sheegay dagaalkan marka ay soo galayeen iyo waxyaabo kale oo xogo kala duwan soo bandhigay ay rag generaal sida iyagu hadalka u dhigayaan ayaa ku jira muuqaalada ay baahisay Dimitri Wayana oo ah warbaahin ku hadasha afka deegaanada Tigreega. saraakiishaasi oo la wareystay dhamaantood waxa ay leeyihiin ama u mahad celinayaan kooxda TPLF oo ay sheegeen in si fiican ay ula dhaqmeen kadib markii ay gacantooda soo galeen. waxa ayna sheegeen in dagaalka laga joojiyo deegaanada Tigreega dadka shacabkaana loo naxo waa sida ay iyagu leeyihiin amaba ay ku soo gudbiyeen warbixinadaasi iyo waraysiyadii laga qaaday dadkaasi kala duwana. cadaadiska dhinaca caalamka haddii aynu eegnana wali waa uu sii socdaa waxaana dhinacyada laga dalbanayaa in ay dagaalka joojiyaan oo miiska wada hadalka yimaadaan. safiirka u fadhiya wadanka Ethiopia wadanka Pakistan iyo safiiro kale oo ilaa iyo ka badan 10 safiir ayaa waxay leeyihiin wadamada ay joogaana ay u sheegayaan in dawladda federaalka wadanka Ethiopia kaliya aan la fiirin in TPLF lagu cadaadiyo miiska wada hadalka inay yimaadaan sidoo kale tana ay kooxda TPLF loo sheego in ay dagaalka joojiso ayna wada hadalada si toos ah uga qayb galaan. laakiin waxaa jira in wadamada reer Yurub reer galbeedka iyo dhinacyo badani ay TPLF wali eedeynayaan ayna ku eedeynayaan in ay iyagu yihiin kuwa dhibaatooyinka ugu badan sameynaya marka la fiiriyo dagaalka ka socda waqooyiga wadanka oo ay sheegeen in ay dawladda Ethiopia iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed yihiin kuwa duulay loona baahan yahay inay dagaalka joojiyaan. marka dhinacaas ay dawladuna cadaadiska iska fogeynaysaa iyo culayska iyo waliba eedeymaha reer galbeedkuna xaggan moodaa inuu ku eedeynayo iyagoo waliba mararka qaarkood boorku isku qarnayo leh dagaalka joojiyo oo wada hadal imaada. TPLF dhinaca kale cadaadis in dawladda la saaro codsanaysa waxaad moodaa dhinacyadu marka isku tuurtuur badan oo dhinacaas ah ayaa jira. wali marka dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda kawma joogan farina kama qodna ayaad moodaa sida xaaladdu ay tahay xilligan. sababtuna waxa ay tahay dagaalada socda marka la fiiriyo iyo dhinacyadu diyaar garow ay ku jiraan iyo abaabulka ciidan ee dhan kasta wali laga sii wado iyo waliba diyaar garow diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo gudaha wadanka Ethiopia iyo dibaddaba ka jira marka aad qiimeyso wali xaaladdu ma sahlan. sidaas ay tahay hay'adaha xuquuqul insaanka ee wadanka Ethiopia iyo sidoo kale kuwa caalamku waxay ka digayaan
arrimo la xiriira xaalada bini aadamtinimo ka jira deegaanada Tigray. waxaa kaleeto oo iyaguna ka digaya arintaas iyada ah hay'adda caafimaadka adduunka oo sheegaysa in ay dhibaato weyn ku qabaan in adeegyo la gaarsiiyo deegaanada Tigray. laakiin dowladda Ethiopia colaad ayaa kala dhaxaysa hay'adaas oo ninka hogaaminayo Adhanom ayaynan fahansanayn ama aysan doonaynin, sababtuna waa inuu TPLF ama deegaanada Tigray uu ka soo jeedo nin Tigray uu yahay. waxaa kaleeto oo iyadana jirta oo meesha ku jirta in guud ahaan marka la fiiriyo ilaa iyo hadda waxaabihii ugu dambeeyay ee soo ifbaxay ay dhammaantood muujinayaan dhinacyadu in aysan wada hadallada toos diyaar ugu ahayn oo dhan kastaba ha ka timaado. caqabada ugu weyn ee wada hadallada hortaagan sida warbixin ay baahisay Al Jazeera oo kaleeto oo ay ku wareysanayaan dad kala duwan oo diblomaasiyiin iyo arrimaha siyaasadda geeska aad ugu dhunduloola, waxa ay leeyihiin xaalka marka la qiimeeyo xaaladda ka jirta deegaanada Tigray iyo shuruudaha iyo waxyaabaha ku xiran marka hore taba wada hadalku inuu bilowdo TPLF ku xirtay iyo dhinaca dawladda sidaas la mid ah ayaa marka horeba caqabad aha. marka laga soo tago caqabadii hore u taagnaa oo aad moodo qaarkood hadda in laga gudbay. waad mahadsantiin.